sida ay heshay himilo xubno ka mid ah mucaaradka Soomaaliya ayaa abaabulaya qorshayaal waaweyn oo ka dhan ah dawladda uu hogaamiyo madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 22 saac la soo dhaafay kulamo gaar oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelo gaar ah waxa ku shiray xubno ka mid ah mucaaradka qaarkoodna waxay soo jeediyeen in dib boorka looga jafo ciidankii badbaado qaran si ay meesha uga saaraan damaca Xasan Sheekh Maxamuud ee la xiriira muddo kororsiga laba xubnood oo ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo qaarkood himilo la hadlay waxay xaqiijiyeen in xubnaha mucaaradka qaarkood ay qorshahaasi soo jeediyeen tan oo ah mid kaliya ee lagu joojin karo muddo kororsiga Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya xubnaha waxay sheegeen in loo baahan yahay in xubin walba oo ka mid ah mucaaradku ay keenaan ciidamo u dhaxeeya 100 askari ilaa 80 askari si la iskugu dardaro kadibna ay u yeeshaan cudud ciidan oo aad u xoogan inkastoo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee muddaxileedku ka dhamaaday ay horey uga sii baaraan degtay qorshe noocaas ah haddana xogahan helena waxay tilmaamayaan in xubnaha mucaaradka qaarkood ay soo jeediyeen in xubnaha qaarkood loo diro meelo ka baxsan magaalada Muqdisho si ay u abaabulaan qorshayaashaasi ciidankii badbaado qaran kow ee daaqada ka saaray madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanadkii 2021 iyo ciidanka hadda ay abaabulayaan xubnaha mucaaradka ee badbaado qaran labo waa ciidamo isku mid ah oo ka imaanaya sida ay xoguhu tilmaamayaan qabaa'ilada ay ka kooban yihiin xubnaha mucaaradku waana sida kaliya ee lagu joojin karo damaca Xasan Sheekh Maxamuud ee muddo kororsiga dadka qaarna waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si cad ayuu u diiday inuu ka tanaasulo nooca doorasho ee halka dhinaca ee ah doorasho qof iyo cod ah laba xubnood oo ka mid ah xubnaha mucaaradka oo qaraabo hoose la ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaarkood waxa laga soo xigtay inay sheegeen in laga fiirsado arintan balse dib loo dhigo hadii Xasan Sheekh Maxamuud kulamo kale oo la qaato ay wax ka soo bixi waayaan kadib mucaaradku ay qaataan qorshahaasi 3500 askari ayaa la qorsheynayaa in la abaabulo oo ah ciidankii badbaado qaran labo kuwaas oo la sheegay in saraakiisha qaarkood waa ciidamadii hogaamin lahay saraakiishaasi ay diyaarsan yihiin bilaha soo aadanna ay la kulmi doonaan xubnaha mucaaradka isla markaana qorshahaasi la isku dubiridi doono madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland oo qorshahan loo bandhigay ayaa wuxuu sheegay in Puntland ay dhaqaale xoogan ku deeqi doonto ciidamadaasi balse xilligan aysan macquul ahayn in ciidamo ka socdo Puntland la keeno magaalada Muqdisho sidaas la mid ah qorshahaasi waxa qaba madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe isku soo wada duubo madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dhawaan hadal uu warbaahinta u sheegay wuxuu ku yiri laga tanaasuli maayo nooca doorasho ee hadda aan wadno shacabka Soomaaliyeed ayaan rabnaa inaan talada dib ugu celino mana ahan qorshe aan xilligan ka tanaasuleyno taasi oo loo arkay inuusan xilligan dhag jalaq u siirin Xasan Sheekh Maxamuud xubnaha mucaaradka ee qayladhaanta la hortaagan bahda warfidiyeenka saamilayda siyaasadeed iyo reer galbeedka xayndaabka xerada xalana ku sugan ayaa la filayaa inay mar kale ay sarkaan si ay qorshahan loogu bandhigo xubnaha mucaaradkuna ay uga baaraan degaan isku soo wada duubo xubnaha mucaaradka la tashiyadoodu waa ay sii socon doonaan waxaana la filayaa 3 maalin ilaa 4 maalin ee soo aadan in la qaato go'aano waaweyn oo ka dhana dawladdu hogaamiyo madaxweynaha muddadiisu ay dhamaatay ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisa uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah